murashax xildhibaan nuur cabdi jaamac cadde oo ay weheliyaan sidiiq cabdi cismaan iyo khadar cabdikariin ayaa kormeer kusoo maray goobaha ay diiwaangelintu ka socotay ee gobolka saaxil. murashax ayaa warbixinta habsami socodka goobaha ay ka mid yihiin macaaniyo mandheera, lafaruug, abdaal iyo goobta fiinland oo ka mida magaalada berbere ka dhageystay guddoomiyaasha goobahaasi. murashax nuur cadde ayaa dhankiisa ku dhiirigeliyay bulshada deegaanadaasi inay isdiiwaan geliyaan islamarkaana ay qaataan kaadhka codbixinta. murashax nuur cabdi jaamac oo u taagan golaha deegaanka gobolka saaxil ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday dadaallo ugu kuurgalayo sida ay u socotay isdiiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka saaxil. deegaanada gobolka saaxil ee ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha kormeerka ah hoosuu nagu wehelinayay musharax xildhibaan nuur cabdi jaamac nuur cadde oo ka sharaxan golaha deegaanka magaalada berbera. kormeerka oon maanta ugu baxnay goobaha diiwaangelinta ay ka socoto oo u badan degmada mandheera iyo deegaanka degmada berbera ee gobolka saaxil. si fiican oo habsami leh u socotay diiwaangelintu. nimadii komishineerka shaqaalii komishineerkuna waxay noo sheegeen ilaa iminka inaanay wax dhibaato ah la kulmin oo weyn marka laga reebo qalab gaabis ku jira habsami u socodka diiwaangelinta. sidaa awgeed maadaama maalintii saddexaad ay tahay oo ay hal maalin harsan tahay, waxaanu dhalinyaro anagoo ku hadlayna afka dhalinyarada gobolka saaxil ee aqoon-yahanka inaan loo kordhiyo maalmaha diiwaangelinta oo lagu daro maalmo dheeriyo supplementary sidii deegaanadii hore ay diiwaangelintu kasoo dhacdayba loogu daray, maadaama aanay dadku ku dhammaanayn 4 cisho ee ahaa normal dayskii loogu talagalay. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba komishinka doorashooyinka qaranka ku adkeynaynaa inay codsiga iyaga noo tixgeliyaan, dadkana u tixgeliyaan si ay dadku isu diiwaan geliyaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 12aad oo halkan ay ka socoto diiwaangelintii codbixiyayaasha, waxaanu kormeer ku tagnay wafti anaga iyo wafti uu hogaaminayo xildhibaan nuur cabdi gooba hoostaga degmada mandheera ee gobolka saaxil, halkaasoo aanu u kuurgelaynay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka isdiiwaangelinaya. kormeerkaas waxaa nooga soo baxay in hawsha halkaa ka socotaa ay aada gaabis u tahay, kuyuguna aada u dheer yahay. inamada howlwadeennada commissionkuna ay iyagu dadaalayaan, hase yeeshee xagga qalabka oo gaabis daabacadu tahay iyo internetka oo cidhiidhiga ku jira awgood baa waxaasoo dhan sababay. sidaa daraaddeed waxaa noo soo baxday in dadkaasi ay u baahan yihiin in wakhtiga wax loogu daro. markaa waxaanu ka codsanaynaa guddiga doorashooyinka qarankaas jamhuuriyadda somalilan in muddo kordhin loo sameeyo dadka diiwaangelinta u soo baxay si wakhti ay fiican ugu helaan, maadaama gaar ahaan gobolkan saaxil uu ka yara duruufta weyn yahay. bismillahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kormeer shaqo ugu baxay deegaanka ay diiwaangelintu ka socoto ee gobolka saaxil, gaar ahaan degmada berbera iyo nawaaxigeeda. runtii farxad bay ahayd inaan soo ogaado dareenka dadka muwaadiniinta ee kaadhka qaadanaya, oo runtii macno weyn noo sameynaysay. taas oo aan leeyahay u dulqaata bacadka aad taagan tihiin, insha allah wax fiican ayaa natiijo fiican ayaa ka dhalan doonta. runtii si habsami leh bay u socotaa arrimaha diiwaangelintu guud ahaan gobolka saaxil. meelo qaar caqabado way jiraan oo xagga technicalka iyo xagga farsamada iyo xagga speedkaba ah. waxaan ku baaqaynaa guddiga komishinka qaranka in ay noo kordhiyaan wakhtiga iyo goobahaba si ay u helaan muwaadiniin badan oo u baahan inay israjiskareeyaan
maadaama markii hore aanay dadku si fiican isu rajiskaraynin. Dhammaan taageerayaasha waxaan ugu baaqayaa in ay kaarhka inta hadhayna qaataan. kuwa qaatayna waxaan mar labaad ugu baaqayaa in ay qaadashada kaarhkana u dhaga nuglaadaan, sidaa aad si diiwaan geliseen inaad kaarhkiinana u qaadataan. runtii aad baan idinku boorinayaa. dhammaan waxaan leeyahay taageerayaasheeda khaaska iyo guud ahaan gobolka saaxil in ay ku dadaalaan sidii ay kaarhka foodka u qaada